maalintii sideedaad ayuu ka socdaa dagaal laascaanood waxaana la xaqiijiyay inuu maanta dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ee ka dhaca laascaanood madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ciidankiisa ayaana lagu eedeynayaa inay ku fashilmeen qabsashada magaalada laascaanood oo ay maalintii sideedaad ku guul daraysteen inay gudaha u galaan laascaanood Soomaaliland oo in ka badan 15 sano gacanta ku haysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si kadis ah looga saaray gudaha laascaanood kadib markii lagu qanciyay inay banaanka magaalada uga baxaan ciidanka Soomaaliland bilowgii kacdoonka laascaanood Soomaaliland oo isku dayaysa inay dejiso shacabkii caraysnaa ee banaan baxayay ayaa ogolaatay inay ciidankeeda kala baxdo gudaha laascaanood sidoo kale Soomaaliland waxay ogolaatay inay laascaanood dib ugu soo laabtaan odayaal iyo isimo diidanaa Soomaaliland oo laascaanood ay ugu dambeysay markii ay Soomaaliland qabsatay taas waxaa ka sii darnaa markii ay Soomaaliland ogolaatay inay isimada dhaqanka gobolka Sool magaalada laascaanood la yimaadaan ciidamo hubeysan oo aan ka amar qaadan Soomaaliland waana bilowga halka ay Soomaaliland ku jabtay ee ay ku lumisay gacan ku haynta magaalada laascaanood intaas kadib maxaa dhacay markii ay gudaha u galeen magaalada laascaanood waxgaradka gobolka Sool oo isaga yimi deegaano kala duwan ayna u suura gashay inay laascaanood la galaan ciidamo diidan Soomaaliland waxay si cad ugu dhawaaqeen inay Soomaaliland isaga baxdo gobolkooda ayagoo halkaas ku yeeshay shirar isdaba joog ah oo ka dhan ahaa Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland oo ay wasiiro ka joogeen laascaanood ay u xil saartay xiisadda laascaanood ayaa isku dayay inay la fariistaan waxgaradka gobolka Sool laakiinse waa ay waayeen cid la hadasha waxaana laga xirtay albaabka intaas kadib Soomaaliland waxay soo saartay warar iskhilaafsan oo ay uga hadlayso xiisadda laascaanood hadalkii ugu cuslaa ee Soomaaliland dhaawac u geystay ayaana ahaa kii ka soo yeeray taliyaha ugu sarreeya ciidanka militariga Soomaaliland sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Taani ee ahaa inay Soomaaliland leedahay ciidanka ilaalinaya waxgaradka gobolka Sool ee wata calanka Soomaaliya hadalka Nuux Taani ayaa noqday mid aan boos haysan oo aan la falgali karin xaqiiqdii ka jirtay laascaanood intaas kadibna waxgaradka gobolka Sool oo 10 maalin shir uga socday laascaanood waxay soo saareen go'aamo ka dhan ah Soomaaliland waxayna si cad u sheegeen inaysan Soomaaliland ka tirsanayn intaas kadibna waxaa laascaanood ka dhacay dagaalkii koowaad oo ahaa mid culus halkaasna ku dhex maray ciidanka Soomaaliland iyo ciidamadii ay wateen isimada dhaqanka gobolka Sool dagaalkaas ayaana maanta jirsaday 8 maalin welina ka socda laascaanood Soomaaliland waxay awood ilaadahay inay xoog ku qabsato laascaanood sidoo kale dagaalka laascaanood oo maraya maalintii sideedaad ayaysan muuqan wax xal ah oo looga baaqsan karo dagaalka socda waxaana labada dhinac ee Soomaaliland iyo waxgaradka gobolka Sool ay isku eedeynayaan inay qolo walba diidan tahay nabadda waxaana burburtay xabad joojintii ay ku dhawaaqday Soomaaliland waxaana sii socda dagaalka laascaanood